السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كحرا أفلح أونلاين. kusoo dhawaada mar kale iyo aflax online waxaan idinka mahadcelinayaa inta ku xiran inta daawata inta iska diiwaan gelisay sidaas oo kale waxaan u mahadcelinayaa kuwa ila soo xiriiray ardayda gaarka ah ee wax ka barta aflax online dhammaantiinba waa idin mahadcelinaynaa waa mar koowaad marka labaad videogan waxaan u sameynaynaa clip iyo tan gaaban ama muuqaalkan gaaban waxaan u sameynaynaa inaan bal dadka faahfaahin dheeraada aan ka siino si guud aflax online wuxuu yahay marka ugu horeysa magacaygu waa Axmed Cabdi waxaan ku noolahay oo aan deganahay wadanka Mareykanka aflax online wuxuu ku yimid kadib markii aan arkay baahida ka jirta wadamadan reer galbeedka ama Ingiriiska lagaga hadlo iyo xataa wadamada Afrika baahida dadka Soomaalida u qabaan barashada afka Ingiriisiga. Ingiriisku asaga ahaan cilmi ma aha laakiin waa wax lagu barto cilmiga sababtoo ah jaamacadaha ugu badan adduunka sidaan qiyaasayo waxa lagu bartaa luqadda afka Ingiriisiga. cilmiga ugu badan waxaan qiyaasayaa sidaas oo kale inuu ku qoran yahay afka Ingiriisiga. dadka wadamada Mareykanka oo hadda aniga joogana baahida koowaad waxay dadka u haysaa waa luqadda afka Ingiriisiga. taasina waxaan ogaaday sababtoo tahay 15 sano muddo gaaraysay waxaan ku shaqayn jiray turjubaan afka Ingiriisiga gobolkan Minnesota oo aan anigu deganahay. meelaha ka kala shaqeeyna waxaa ka mid ah xafiisyada dawladda ka mid tahay maxaan ku raahdaa sida maxkamadaha oo kale. maxkamadaha 2002 bay ahayd markaan shaqada la bilaabay turjubaanadeeda ka mid ahaa. waxaan ka mid ahaa turjubaanada wasaaradda waxbarashada gobolka Minnesota ama ka diiwaan gashan. waxaan u shaqeeyay agenciyooyin kala duwan oo turjubaanada sidaas sameeya. marka waxaan aad u noqday qof daneeya barista ama barashada afka Soomaaliga naftigiisa iyo luqadda afka Ingiriisiga iyo inaan baro dadka Soomaalida ee jecel inay bartaan afka Ingiriisiga. kaasi waa horta waa intaas waa guud ahaan. marka magacaygana waa Axmed Cabdi sidaan idin sheegay. macallimiinta kale oo igala qayb qaadata ama kuwa aan jecelahay inay igala qayb qaataana qaarkoodna Mareykan ay joogaan qaarkood Canada ay joogaan. macallin Faarax oo videoska qaarkood aad ka daawateen muddo fara badanna macallinka ahaa ilaa Soomaaliya Kenya ilaa iyo hadda uu jooga Canada. macallin Faarax soo wuxuu ku sugan yahay Canada waana uga mahadcelinayaa videoyadaas. insha Allah barnaamijyo kalena macallinka waa idinka soo diyaarin doonaa maadaama hadda kala wadan aanu joogno. aniga ayaa badanaa videoyada sameeya marka insha Allah mar kale aan barnaamijyo kale idinka sameynaya. waxaan rabaa inaan ka hadlo su'aalo ay dadka isoo weydiiyeen oo ku saabsan aflax. dad fara badan ay soo weydiiyeen sideen idin la soo xiriiri karnaa. waxaan ugu soo xiriiri kartaan emailkayga badanaa oo ah afkayga ama aflax online emailkiisa afkayga haddana shaashada idinku qoran. website-ka aflax waad nagala soo xiriiri kartaan. YouTube-ka meel walba waad ogtiin maanta qofka fariintaad u soo qortid isla markiiba u imanaysaa. waxaan kaloo aan jeclahay dadka raba inay galaasyo gaar ah qaataan maalmaha weekendiga oo aan hadda aan bilownay 2 galaas oo toosa barnaamijyo duuban oo ayagana dadka ardayda loo dirana way jiraan. marka waxaan idin siinayaa sidaas oo kale taleefankayga ama 2 number oo iskuulku u leeyahay oo aad naga soo wici kartaan. numberka koowaad waxa weeye 612 232 38 waa 612 232 38 waa numberkaas waa numberka aniga adiga soo wici kartaan. waana Mareykanka waa Minnesota haddaad meel kale joogtaan. dadka dibadaha ku nool fiberka isticmaala ama emailga isticmaala dadka Yurub ku nool oo kale iyo meelaha kale oo social media oo dhan hadda numberka ku gelisid waa iga helaysaa waad igala soo xiriiri kartaan haddii Ilaahay idmo. taasi waa sida aad noola soo xiriiri kartaan. waxaan ogahay baahi badan inay jirto. YouTube-kana sidiisaba waxaa loo isticmaalaa qaab YouTube waa free dadka isticmaala oo videos ka gelinaya waa u free
dadka badanaa daawadana videoska waa u free as long as qofku internet leeyahay. maadaama ay jiraan dad fara badan oo Afrika jooga ama Soomaaliya jooga oo jecel barashada afka Ingiriisiga, waxaan isku taxallujinaynaa isbuucii hal video oo free ah inaan idiin soo gelino YouTube-ka. waa dadka basic barashada luqadda afka Ingiriisiga, dadka aanan awoodin inay lacag gaar ah iska bixiyaan, inaan hal video isbuuc walba aan soo gelino oo ah bilowga barashada afka Ingiriisiga. insha Allah cilmi kale noo gudbina markuu waqtiga noo saamaxo iyo timeka. ana waxaan jecelnahay inaan kordhino videoyada free-ga ah oo aan soo gelinayno. dadka jecel barnaamijka horta yaan ugu talagalnay intaanan taa u gudbin. barnaamijkan waxaa ugu talagalnay maadaama aan anigu ku 15 sano Mareykan aan joogay, dadka Soomaalida ah ee badanaa 19 20 wixii ka weyn ama 21 badidood way shaqaystaan. dadka luqadda Chinese-ka u helo waa dadka dugsiyada hoose ka bilaaba ama dugsiga sare ka bilaaba. badanaa dadka aan aqoon luqadda markay waddanka yimaadaan cilmi walba uu leeyahay way ku adkaataa qofka, gaar ahaan dadka shaqeeya. barnaamijkan aniga sida ay la tahay waxa ugu wanaagsan ka anfici karaa waa dadka shaqeeya, sababtoo tahay ma u baahnid inaad class tagtid. casharkii oo duuban ayaa waxaa lagugu soo dirayaa email. maxaan ku rahdaa waqtiga aad doontidna waa fiirsan kartaa, xilliga aad doontidna waad ku ceshan kartaa. waqti walbana videogaagii lagu soo diray ee casharka ah waad daawan kartaa. casharka waxaa loo diyaariyaa qaab qoraal ahaan marka hore, ka bacdina codkii baa saaran. ardayda gaarka ah wuxuu helayaa casharkii qoraala, maqalkii oo saaran, su'aalihii, wixii sharaxaadii oo dhan waxay ugu soo dhacaysaa emailka. taasi waa taa. waxaan sameynay sidaas oo kale labada maalmood ee weekendiga, maalinta Sabtida iyo maalinta Axadda. labada maalmood waxaa jiri doona Mareykanka xilliyada duhurkii oo kale ama subaxdii hore casharo toos u bixi doona oo qofkii raba inuu private classes ka mid noqdo oo si gaar ah ila soo xiriiri karo emailka ama telefoonka aan idin siiyay, lagu dari karo maalinta Sabtida iyo Axadda. Sabtida iyo Axadda waa maalmaha ay casharada tooska ay baxayaan. dadka aanan rabin cashar walba horta aanu bixino ama toos ha ahaado ama mid dadban ha ahaado wuu duubay, laakiin labada maalmood waxaan rabnaa maalmo ay ardaydu kulmi karaan, wada sheekaysan karaan in ay ka noqoto oo ay ardayda oo dhan ku jiraan fasal. waxaa jira program qofka aan looga baahnayn inuu ka yimaado ama soo xaadir online-ka naftigiisa oo ah laba maalmood oo lagugu soo diraayo casharkaagii oo habaysan, lagugu soo diraayo emailkaaga. casharka ardayga iska diiwaan gashay oo khidmadiisa bixishay oo diiwaan gash waxaa loogu soo dirayaa emailkiisa. waxaa jira isagana mid 4 maalmood ah oo isagana barnaamij la diyaariyay ah oo qofka weekiiba 4 maalmood loogu soo diray sidaas oo kale emailkiisa. maalinta ardaydaas barnaamijkooda oo isagoo duuban loo diro oo dhan Chinese waxay sidaas oo kale heli karaan maalin macalinka la hadlaan, su'aalahooda weydiiyaan maalmaha weekendiyada Sabtida iyo Axadda oo qofka uu macalinka la soo xiriiri karo hadii la haydo. barnaamijyada aan barna maxay yihiin? waxaa jira baahida saan idin sheegay luqadda afka Ingiriisiga, Soomaaliga oo ay jiraan dad Soomaaliga raba inay bartaan, dad Soomaaliya ha noqdaan oo dibadaha ku koray ama ku dhashay, hadda qaarkood jaamacada dhigtaan laakiin u baahan inay Soomaaligoodii kororsadaan. oo waa taasina de qofka la yaab ma laha hadda mar af Soomaaliga aadan iskuul ku dhigan waa u baahantay inay baratid. dadka markaa sidaas oo kale waa barnaa dadka raba inay af Soomaaliga bartaan laakiin Soomaaliga ku hadla laakiin raba inay qoraalka iyo akhrinta bartaan. waxaa kaloo jira dadka af Ingiriisiga ama afafka kale ku hadla, Arabi ku hadal, waxaa doontid ku hadal, oo iyaguna raba inay bartaan afka Soomaaliga laakiin lagu turjumayo Ingiriis ahaan. qofka inuu Ingiriis yaqaan waa ayagana waa barnaa dadka ajnabiga ah. barnaamijyada xisaab jirta insha Allah ana waqtigeedii soo sheegi doona classada xisaabta ay bixi doonaan. marka waxaad nagala soo xiriiri kartaan saan idin sheegay telefonkana waa idin qoray ama telefoon laba number baan idin ku soo qorayaa shaashada. YouTube-ka wixii fariin noo soo dirtaan waa heli karnaa. Aflax Facebook-ga meel walba ama email-ka fariinta aad noo soo dirtaan waa helinaa.
fariintan muhiimadda aan idinku sheegay hadda waxa weeye bishan December ayaan waxaan go'aansanay in aan xooga saarno inaanu galaasyo aan ku bixino online-ka. marka haddaad doonaysid kuwa aad ku taxan tahay oo maalmaha Sabtida iyo Axadda labada maalmood baxana waad nala soo xiriiri kartaa. sidaas oo kale haddii aad doonaysid kuwa 4 maalmood waa nala soo xiriiri kartaa oo 3 baan u kala qaybinay iyo kuwa macalinka oo sharaxaya ardayga uu ka soo qayb qaadan karo, kuwaasna waa maalinta Sabtida iyo Axadda. waqtiyadeedana waxaan ku qorayaa website-ka xilliga uu bixi doono Minnesota Time. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. wixii su'aalo aad qabtaana emailka ama telefoonka igala soo xiriira insha Allah bismillahi kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.